laba sheekay leedahay maasada hooyay la'aanta mid waxay ahayd anigoo yar oo caruur ah ayaa geel la arooriyey geeli baan raacay aad baan u yaraa u malayn maayo da'deedu 6 jir ka weynayd 6 jirku waqtigaa dee kulleyba nolosha kaalin buu ku lahaa qofku yaraantaba dee kaalin buu nolosha dee kaalin qofku da kastaba ha joogay nolosha cid kasta nolosha kaalin bay ku lahay marka anigu kaalintan ku lahaa waxay geelaasi markuu la arooriyo ceelka la geeyo inaan is hortaago oo marba in la sii daayo intaa waan kari karayo da'daasana dabcan dabada geelaasaan raacay la arooriyey wuu soo cabay wuu soo fulay goor cawaysa ayuu xeradiisii uu ka arooray u yimi xerada beelgoodiya ku taalo reerku maaragtay waa ka yar durugsan yahay reerka geela haddii la ka dhigo geel uu xareysan yahay intiisa kale way ka durugsantahay xerada marka xeradii baa geeli baa soo xeroodayo waa la maalayo maanta oo dhan waxbaa la waraabinay maanta oo dhan geeli baan hortaagnaayo markii la maalay caanihii la dhamay waa la kataati dhacay yariyo aniga iyo raggii waaweynaa kataati dhacu waa marka daalku kugu khasbo inaad istaagi kar weyda aad haddii la ka dhigo maaragtay aad beelu sidaas waa istuurid weeye haddii kataati dhaca isaado imika uun si kooban u sheeg waa la daatay dabeetana goor caweysa baa kaadiyay goor dambe oo malaa sar dhool la hurday ayaa caanaha geelu iska caadi kaadi badan bay leeyihiin yaan toosoo kaadi bay qabato waxaasay soo kaadi marka hal baan arkay oodii geelu markuu soo cabo waa caada iska jirta habeenka haddii aanu biyaha caws ka dambaysiin waxaa lagu yaqaanaa inuu ka daato xerada xerada ka daato waa inuu daaq mar hadduu biyo soo cabo caloosha biyaha qabow caloosha ku jira waa inuu wax ku haddii la ka dhigo maaragtay waa inuu daaq helo haddii ay la waayo oo sida toos loo soo xiro xerada u soo galo laasim waa habeenka xerada ka daata soo ma arkin marka waan toosay waxaan sidii kaadi bay qabato soo kaadi baan sidii waxaan arkay hal oo jeexday oo qaarkii hore dibadda ula dhacday qaarkii dambena xerada ku jiro waxaan sidii asha haddaad siraa soo celi meeshu waa meel caanaho waa waqtigii libaaxa oo dhulku sidan imika u araday maahayne dhulku waa camiraayo dugaag oo dhan nooc kasta ayaa jooga waxaan haddaad heshaa istada soo celi bahalka hareeraha ka ciyaya ee libaaxa la yidhaahdo ku dayn maayo ku qaadanaya dabeedna yar baan intaan halkii aan fadhiyay iskaga kaaji ayaan halkaa dhinacii iska sii seexday hashii halkii bay ka baxday geelii oo dhammina halkiibuu ka baxay ووضح فعلا إلى ذهبك حرذا ما حرذا كمتشري والله إلى ذهبك جوح اللي باحنا والله مقلع أفرت بين شو كعية اللي باح ووقت جيت لكو عم الراوي وحول بيت شوقين ما حول بني آدم بيت دقاق كل نوعه حياة بيت شوقين وقال كل نوعه واقفت marka koorda baabala geeli xaradii baa halkii ka baxay nin way baa toosay oo kaali qabatay xaradii waxa fadhida hal kaliya oo kaan biyo la kici weynay oo duqa waan wali magaceedu xusuusto qaabil la oran jiray qaabil ayaa xarada fadhida intii kale way dareen kii markuu toosay xaradii oo maran arkay waqtiga aad meel loo baxsadana ma jirin oo magaalo iyo qurbe iyo wax kale ma jirin oo ninku hadduu hashii xarada ka waayo تمير ماله واي ميلو عرريو كله ميلو شقة تجيو كله ما جرتو حردي بركو أركين برانتا بوركا كعا جيلي حردك ما تشري تبدنا والله يا عي والله يا عي من وقتك سقط على حشي سحرك واي ما بيرقبه واقرت مركز يعدي عليك هالكي بالله يقول الله ورر بعد أنا يا شقة بنبيا لك عويدي لبدينا اللي تكتك يا لو كرتي واقر كورد ما كان يقابل قولي حرب مسه وأرجع هالشيء قابل إب أو بيلك عويدي الدقة بيل بدن ندسوا عبتو بيلك عويدي تعال لك كلك عدو واقرت مركب وحنا سير هاي كل جنوات بروسو حسن تادي مكدس سريرك قبنا تدي حدا بحال كوا قادني واقرت مركب أردا للسبية ودور يدور يسوي شيء أو قبل السبية قلبتي واقرت أيام ضحكة أو شيء كيس كشرت اللي باعوا أراك أو حبكم مدلي أرتو وحكود لها أما بحال ولا مي أيجا ويدي كاركيس سبب وحرادي ليه بس هذا هو the same thing صح اللي بحوا سيداس تبعدنا
markaasaa isiri wallaahi caawa dee ur buu kolay ku imanayaa laakiin urta mar haddii hashani joogto xerada dhex fadhida dee waxaad leedahay rashaad leedahay iyadaa la cunaya haa dee qaabi allah yakhalli qaabi ya dabeedna uun duurkii iyo ardaagii jiqda ahaa ee cawska ahaa la dhisay ayaan dhex galay dabeedna halkaa raarta anigoo meesha ku jiro oo meel yar labada indhood meel yar laba duur inta saa u yar kala qabtay wax ka daawanaya ayaan halkaa dambe ee xerada raarteeda dambe saqar ka maqlay cadday ahayd waxaan filayaa ama 13 ama 14 dayaxu habeenada bayaxowga la yidhaahdo waa egay qoryo xero libaax waaba ka soo booday xeradiiba saqar baalku lugihiisa waxaad moodaa spring baa ku jiro markuu soo boodo saqadhiisa dareer la maqli maayo inta badan bahalku dee waa bisad yar uun adigu adiga arkay aayar buu saa u soo booday saqadhi yar oo fudud waxay la mida maray aad sii dayso dhulka ku dhacday dabeedna waa dayaxay waan eegay markuu raartaa ka soo booday saasuu ii hormaray hashii qaabiloo halkaa fadhido oo iska raabsanaysa ayuu u tegey hashii saasay u jalleecday oo u eegtayoo kici kari mayso dabeedna baalku oo manu joogaa waa meel hawda oo mana ah oo ugaadh baa cariga ka buuxda hilibba dooni maayo waa raadan yahay biyay raadinaya marka hashiiba halkaa maaragtay halkaa meesha halkaa goljilic baa la yidhaahdaa goljilic intuu soo ag taagay ayuu halkaa goljilic waa halka ugu jilicsan waa meel cadkii ka dhammaaday oo waa haraggii oo keliya oo goljilic baa marka horeba iska jilicsan waa halkaasuu qabto saasuu soo dhuftay markaasaa biyihii soo boodeen hashii saasay u jalleecday xataa way cabaadi kari weyday kicid iska daa biyihii baa dee galsha noqday balli yaroo dabeetana jilbuhu dhigay biyihii buu cabbay biyihii markuu cabbay hadda markaa waad daawanaysaa anigu dee waa anigiyo haddii ay ka dhigo insha allahu dhinaca farsamada ay kuu jirto ninkan haa aad iyo aad laakiin urin maayo dee urtii waxaa ku gudban hashii yaa hadduu iru lahaa oo u iman lahaa way heli lahay laakiin urtii waa isku mid qofka urtiisii hasha isagu urtiibuu ku yimi hasha urteediibuu ku yimi waa gartay kabacdi markuu biyi cabbay dee waxaan filayay markaa inuu baxee waaba iska dul fadhiistay aayar buu fadhiistay nina sidaasuu labada jilibte labada qaarka dambe ugu fadhiisto cabaad buu fadhiyay mar kaluu biyihii ku noqdayoo markuu cabbay ayuu meeshii geelu ka baxay marka maadan ooyin miya adiga carruurta waxaa lagu yaqaan waxaasi ma jiraan oo waqtigaa oohinayo qofku 6 jirka waa ku nin raga weeyo libaaxay maaha dadkan iska cambacambaha qofka waa la leelihi jirayoo inuu ooyo iyo waxaasi mamnuuc bay ahaay libaaxana waad ka warhaysay inuu ooyo qofku waliba raggu ilaahu ma 4 jir noqdo oohinta mamnuuc bay ahay iyo cabashada iyo jiljileeca iyo waxaan oo dhammi ma jirin noloshaan anigu dhexdeeda ku dhashay marka calaa kullin bahalkii wuu baxay alxamdulilaahi ayaa mid kale kadinkii geelu ka baxay ka soo galay libaax kale oo isna ma ooman yahay talow isna biyihii oo markaa dee batay ayuu isna iska dul fadhiisto wuu cabbay markuu cabbayba saaca isu taagayo cabaar buu jimicsaday oo iskala bixiyey oo iskala gurayo markaasuu bahal ciya subxaanaka yaa cadiim markaa isku shareerto markaasuu isagiina mar dambuu baxayoo dabeedna hashii weli biyihii waa ka socdaan wax weydiyada ma gaadhin weynosho way dee may dhimani layne biyihii unbaa ka socdaa foosto malaha biyo foostaa biyaha unbuu ugu talagalay inuu ka cabo waa oomaya hilib dooni maayo hadduu hilib dooni hasha u arkaya inaanay wax la cunaba inaanay ahayn marka adigu mar saddexaadkiiba waxaa arkay muuq kale oo soo socda muuqa markaa soo socdaa maaha libaax oo dee waad arkaysa waa caddo bahal maaha waa wax sidaa u dhisan sidaa u taagan oo laba addin ku soconaya marka waxaan is idhi bahal berigii horena lagu cabsiin jiro carruurta habeenkii lagu sooxin jiray oo la odhan jiray madax kuti bahal dadqaad ahoo madax kuti la odhan jiray markaase waxaan is idhi wallaahi iyadu waa iska dadoo ilaa kuwa hore urtii iyo qaabiliyaba kaaga filaatay kani siduu waxaa siduu u soo socdo ayuu dee ku qaadanaya waayo waxaa la odhan jiray madax kuti baa jirto habeenkii guriga duleedkiisay timaadaayo markaasay carruurta yaran magacyadooda dhegaysataayo marka la seexdo ayay muska isi soo taagtaayo markaasay odhanaysaa hebelow ama heblaayo markaasuu odhanayaa hee markaasay odhanaysaa hoo misigtan markaasuu odhanayaa isiyo markuu gacanta soo fiiqo ayaa la kuray markaasaa taasaan qaatay muuqii
kadinkiibuu soo galay waa arkaya inuu qof yahay laakiin cabsida ay haysaa ka xoog weyn qofka aan arkayo marka calaa kullin muuqii siduu soo socday ardayga isoo taagayo markuu ardayga isoo taagay ayuu xaggan eegay xagganna wuu eegay xagganna wuu eegay dabeetana markuu saddex hareerahoo dhan eegay ayaa qofkii hadlay oo wuxuu yidhi alla hoogi markaasaan gartay inay hooyaday tahay oo waxaasoo libaaxa soo jiidhay oo markay raggii baa guriga sii maray oo hubiya wax ka guranayay markaasay ku ogaatay in halkii lagaga yiri halkii baa ka soo booday dabeedna hooyaday anigoo haddii ilaahay ka dhigo dee hooyada halkii baan ka iga kaxaysa anigoo labadeedaa lugood dhexdooda ku jira taasoo dhacday ayaa habeenada ka mid ah koleyba waqtiga sheekadan baan ku gabagabaynayaa xamar muqdisho la foole meel ay yidhahdaan waqtigaana joogay magaalada muqdishoaan muraad u soo yeeshay magaaladii baan ka muraadsaday basas ka bixi jiray oo yaryar baan raacay meel kantaroolka u afgooye looga baxo yuu istaagay wuu ka dhaqaaqay markii uu kantaroolkii u dambeeyey muqdisho ka dhaqaaqay ayaa kuraasida baabuurtu waxay ahayd baabuurkaas wuxuu lahaa 2 kursi oo dhaadheer safalka ka soo jeeda iyo safalka ka soo jeeda halkaa hortayda waxaa fadhida qof dumar ah kursiga igu beegan waxaa fadhida qof dumar ah waa qof da'yar ilmo yar bay dhabta ku haysaa diric bay sidataa iyo googarad iyo bahal ay huwanayd baskii markii yar socday ayaa ilmihii yaray dhabta ku haysay oo hin bilaabay waa aamusi waayey wax walba way samaysay waa aamusi waayey qayladiisii dadkii baabuurka ku jiray wuu dhibsaday mar keliya ayaa hooyadii intay sidaa halkaa gacanta gelisay ilmi yaraa halkan jiifa ayay naaskii soo saarto afkaaba u gelisay shok baa markaa dhacay caado ma ahayn dee qof dumaroo hoo Soomaali oo da'yar inay naaskeeda meel geeyaan fadhiyo rag fadhiyo ee naaska arrin adag bay ahayd naaska ku soo saarto laakiin waxaa dhacay duruuf xukumaysay inay soo saarto go'aan kaa qaadato marka dhaliili ma imanne anigu saasaan uga horjeedayo waxaan gartay uun habeenkaasuubaan si fiican u gartay waxa hooyanimadu tahay yani maaha mid yani naaska ay halkaa usoo saartay nacasnimo kama aha qof qaade anshax darro kama aha laakiin waajib hooyanimo ayay gudanaysa naaskii baa fogfaristo ilmihii naaskii uu jaqayo markuu dee ka dhirkay abaalgudkii lagu yaqiinay buu bixiyo dhabteedii uu saxaro iyo kaadi iyo banka buuxiyey iyadoo halkeedii fadhida subxaanaka yaa cadiim marka baraganimadeeda gabadhii dabadeetana diricii bay soo gurto horta saxaradii ee ku dabooshay iyadoo u jeeda dadka baabuurka ku jira dadka qaar miyaa dhibsada markaa waa la dhibsanaya horta waa la dhibsanaya qaar baa cimaamadihiisaa yidhi laakiin waa caynkaas marka horta waxay isku dayday inay urtii xal u hesho diriceedii bay soo ururisay banta ma garanaysa saxaradii ayay ku duubto ku laabtay yaa soo hadhay ilmihii oo qoyan gogaradeedii bay soo gurtay oo ilmihii ayay ku qallajisay hooyada waajibkii iyadan dhul fadhiyin oo aqalkeedii fadhiyin oo meel dhula fadhiyin baabuur saaran ayay waxaas intaasoo waajiba ay gudatay ilmihii qallajisay ilmihii aamusiisay oo caana siisay dadkii urtii ilmaha ka dabooshay subxaan allah halkii baan horta markaasaan gartaan hooyadaas waxaa ka keenay xishood darro maaha waajib culus baa yidhi oo aanay ka adkaysan karayn oo ku noqon lahaa fadeexad iyo dhegxumo ilmaha yar inuu caawoo dhan ooyo dabadeetana dadku marka dambe iyada magan ilaahay dhulka kula gooye maxaad u aamusiin weyda haddii ilaahay ka dhigo ilmaha yar intaasoo dhan iyadoo baabuur gudaha ku jirta ayay gudatay baabuurkii halkan ku socday wayla dhaafay habeenkii waa isilaawa habeenkii baan xusuustay iyo hooyada iyo libaaxii labadii sheeko habeenkaasaan heestii markaan gurigaygii imi qayili jiro qaad baan sitay ayaan haddii ilaahay ka dhigo gurigayga hooyay la'aanta habeenkaasay soo baxday hooyada qura maahay hooyoo dhan ayaa sidaas had iyo goor xaqa waalidka lama gudo oo lama gartee
bal hooyada caynkaas waxaad bal su'aal dadka weydiiyay bal hooyada caynkaas taas aan ka sheekaynayaa ama mar libaaxa igu tibiyay ay halka istiri adiga ha ku cuno saxan weydii intaasoo dunida waxa libaax ka ciyaaya soo jiiday halka igu tibiyay iyo tabaska gudihiisa ilmaha yar hadii ay ku kaleftay inay qaawiso ilaa kubabkeeda oo ay adkay ka dhigo ilmihii aaminsiiso asturto hooyadaasi markaa bal su'aal baa weydiin waxa bal hooyadaasi waxay xaq u leedahay bal ka warran